isticmaala baraha bulshada ayaa bishii hore khariirad god madow oo ku taala bartamaha badweynta Pacifiga taasoo dhalisay muran badan iyadoo fikrado kala duwan ay dadka ka dhiibteen godkaas. Dad badan oo ah kuwa isticmaala baraha bulshada ayaa isweydiiyey waxa uu noqon karo duleelkaasi badda gudaheeda lagu arkay. Hadda waxaa la ogaaday in ay tahay khariirad lama-degaan ah oo la yiraahdo Vostok, taasi oo ka tirsan Jamhuuriyadda Kiribati oo ah waddan ku yaala bartamaha badweynta Pacifiga. Daloolkan madow ee dhawaan lagu arkay bartamaha badweynta Pacifiga ayaa ugu dambeyntii imika qabsoomay oo la waayay. Isagoo ka eegaya khariiradaha Google ayaa mid ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada waxa uu arkay inuu jiro duleel madow oo aan la aqoon waxa uu yahay oo ku yaala bartamaha badweynta Pacifiga. Si kastaba ha ahaatee, godkan madow waxa uu u muuqday mid ka fog wadamada kale ee jasiiradaha, taas oo jahwareerisay dad badan oo isticmaala baraha bulshada. Iyadoo taasi laga duulayo, fikrado badan oo la mid ah godkani ayaa la baahiyey. Arrintan ayaa dad badan ka yaabisay. Fikradihii iyo talooyinkii la soo jeediyey ayaa u muuqday kuwo muujinaya in waxani yahay duleel badda gudaheeda ku yaala. Dadka qaar ayaa ku tilmaamay in laga yaabo inuu yahay foolkaano biyaha hoostooda ku jira. Qaar kalena waxa ay sheegeen inay filayaan inay tahay jasiirad qarsoodi ah ama xero ciidan. Goobtaasi ayaa ugu dambeyntii la aqoonsaday inay tahay jasiirad 6,440 kiiloomitir bari ka xigta waddanka Australia, taasi oo leh kayn weyn oo isku dhex jirta. Dhirta jasiiradan ku taalla waa mid cagaaran mar walba. Markuu cirku madoobaado, khariirada Google waxay u ekaanaysaa dalool madow. Saynisyahano ka tirsan jaamacadda Auckland ayaa ogaaday in baaxadda jasiirado dhowr ah oo ku yaala badweynta Pacifiga ay sii kordhayaan, inkastoo dhanka kale laga cabsi qabo kor u kaca biyaha badda. Saynisyahanadu waxay ogaadeen in jasiiradaha qaar ay kordheen 8% 70kii sano ee lasoo dhaafay. Si loo fahmo isbeddelka, waxay baareen sawir dayax-gacmeed iyo macluumaadka laga helay goobahaasi. Cilmi-baarayaashu waxay rajeynayaan in caddayntan ay ka caawin doonto jasiiradaha si ay ula qabsadaan kulaylka waqtiyada soo socda.